Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conversation. Halkan maanta waxaan dib ugu soo laabanay channelkeeni baryahan xogaa waa karaalada maalinka waa iska mashquulkiisa aad u badan marka insha Allah taala isku soo noqod wanaagsan walaalayaal dhageysi wanaagsan la socod wanaagsan dadaalkii horad haysan insha Allah dhigana markii hore xogaa waad moodaa inay cashir aad u socdeen laakiin hadda xogaa lafteed waan ka dareemay markaan khadka galaamaasho boxkiga ama qaanadii markaan galo waan ka dareemay socodka cashirka inuu aad xogaa bedel ku dhacay insha Allah taala marka si wanaagsan ila socda insha Allah taala cashirka dad ka hesho like noo sar dhiirigelin bay noo tahay gambaleelka haddii aad xusub tahay subscribe noo dheh gambaleelka taabo qaybta all-ka ah dhagsiisi si cashir walba aad u hesho insha Allah taala cashirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay muxuu ahaa conversation asaguna laakiin waa beginners cashirkii shaloo kale waa xogaa uu ka yara duwan yahay bal qaabkii base-ka ah bal ardada matalan hadda markaas bal baranaysa xataa wuxuu anfacayaa macallimiinta baraysa ardayda barabadida oo kale ka soo qaad matalan ama home teaching matalan wax qofka markaas uu ku jiro tuition oo ka sameeyana oo kale uu u qaadan karaa yaa marka insha Allah taala waa cashir aad ku anfacayo qaabka su'aalaha loo weydiiyo gaar ahaan aan qaadanayna where iyo what where waxay tilmaantaa waa question word labadoodu waxa waaye question word waa eray su'aaleed baa la yiraahdaa question word ama question word marka eray su'aaleedkaas where waxay tilmaamaysaa boos ama meel ay wax yaalaan ama joogaan whatna mana waxa markaas la qabanaya ay matalan ku jawaab matalan what maxaa ayaad leedahay marka insha Allah labadaas eray aan taagad garaynaa adinkana la socod wanaagsan dhageysi waan insha Allah taala conversation. Where is Abdi? He's in the class. What is he doing? He's writing a lesson. Where is the teacher? He is in the staff room. What is he doing? He is drinking tea. Where is the headmaster? He is in the office. What is he doing? He is typing letters. Where is the watchman? He is at the gate. What is he doing? He is guarding the school. Where are the children? They are in the classes. What are they doing? They are taking lessons. Where is Sarah? She's in the kitchen. What is she doing? She's cooking food. Where is Sarah's mother? She is sitting outside the kitchen. What is she doing? She's washing clothes. Where is Sarah's father? He is in the bedroom. What is he doing? He is sleeping. Where is the baby? It is in the court. What is it doing? It is playing with a doll. Waayahay balaan dib u bilowna insha Allah taala sharaxadii cashirkeena fadlan dhageysi wacan ayaan idinka rajaynayaa fadlan cashirka aan ka codsanayaa fadlan inaad dhamaysato aad xogaa intuu socdo aad u dulqaatay laana waxa waaye wuu ku anfacayaa qaabka uu cashirka u shaqeeyo insha Allah taala dhamayso aragti kaliya ka dhigin aad buu ku anfacayaa insha Allah taala haddii aad dananayso luqadda barashadeeda insha Allah taala conversation wada sheekaysi A iyo B waa labada qof cashirka daadinaysa where is Abdi aaway Abdi where is markaad tiraahid aaway baa la where xagee is uu yahay Abdi na where is markaad tiraahid aaway weeyaan intaan dambe Abdi qofka asaga go'aan u laa in qofku uu meesha keenay where is Abdi where is Sahra where is the pen where is the book waxa doonta adag halkaysan ama laakiin where is waa luqadda Ingiriiskeeda ma kala haraysa where is aaway Abdi aaway okay marka where is Ali where is Hassan where is other sadahay he asaga where is Abdi aaway he asaga is in wuxuu ku dhex jiraa the class fasalka in mana ku jiraa weeyaan where is Abdi aaway he asaga is in wuxuu ku jiraa the class fasalka ayuu ku jiraa
what is muxuu he asaga doing qabanaya what is ama what maxaa is he asaga waxaad dhihi kartaa what is muxuu he asaga doing qabanaya ama waxaad dhihi kartaa what maxaa is he asaga what maxaa is he asaga doing uu qabanaya labadaas nooc baad ka mari kartaa he is asaga writing wuxuu qoraya he asaga is writing uu qoraya a lesson cashir buu qoraya istan hadoo kale markaas macluumaad ka ku jirto writing la socoto write ba main verb ama action ka marka istan xagad ku macna tiraysa wad raacinaysa waad leedahay he asaga is writing uu qoraya baad leedahay he is writing a lesson cashir buu qoraya where is Awe the teacher macalinka where is the teacher Awe macalink where is Awe the teacher macalink he asaga is in wuxuu ku jira he is in wuxuu ku jira waa gujid wey the staff room qolka shaqaalaha staff waa shaqaale room qolki marka staff room shaqalka ay macalinta fariisan ayaa la reedaa he is in wuxuu ku jira the staff room qolka staffka what maxaa is he asaga doing uu qabanaya muxuu qolka sameynaya what is he doing he asaga is drinking wuu cabaya drinking wuu cabaya tea shaah wuu cabaya he is drinking tea shaah wuu cabaya where xagee is uu yahay the headmaster maamuli where is the headmaster where is Awe the headmaster Awe maamuli headmaster maamula gaar ahaan iskuulka ninka maamula ayaa loo yaqaana he asaga is in wuxuu ku jiraa the office xafiiska he is in the office ku jira xafiiska what maxaa is he asaga doing uu qabanaya what is he doing muxuu sameynaya what maxaa is he asaga doing uu sameynaya he asaga is typing uu tape garaacaya ama qoraya letters waraaqo type waxaa la yidhahdaa matalan aad computer wax ku qorto tape-ka sida waagi hore aad jiri jirto wax ku qorto manaha inaad baranka tape-ka aad garaacdo ayaa la yidhahdaa he is typing letters waraaqo type garaynaya garaacaya qoraya typing uu qoraya letters waraaqo where is Awe the watchman Awe waardiye ninka albaabada ilaaliyo wanaha wadooyinka ilaaliyo ayaa la yidhahdaa ama iskuulaha ilaaliyo meel kala ilaaliyo waa kaasa where is Awe the watchman Awe waardiye Awe he asaga is at wuxuu joogaa the gate ganjeelka he is at the gate at mana jooga he is at the gate ganjeelku jooga where is the watchman Awe ninka watchmanka ah he is at wuxuu joogaa the gate guriga mana ganjeelka ayuu joogaa مثلا هدين هذا أديك ما أنت حاجات جوكتا where are you today I'm at school I'm at home I'm at بالله بنا أمريكا أصلا مولي ودي على سؤال where are you بالله وسؤال I'm at the gate I'm at the gate مركا he is أصلا at the gate كان يقول جوا he is at the gate at جوا وين gate نحل هذا الباب كوين اللي قصوا قال ريدا what ما حاجة معها حرمت مركز لجوا what is he doing هو سمينيا what maxaa is he asaga doing uu sameynaya he asaga is guarding wuxuu ilaalinayaa the school guarding uu ilaalinayaa the schoolka guard mana ilaalin weeyaan he is guarding the schoolka ayuu ilaalinaya where xagee are ay the children ciyaalkii where are awal maxaa soo ismaalinaya where is baysoma laakiin hadda maxaa leynaa where are maxaa aada u ismaalinaa the children ayaa jamaca children waa ilmo badan ciyaal weeyaan saas awgeed aadan waxay raacaysaa meeshii dad badan ama wax badan aad ka hadlaysa ayaa la qaataa where is markaad leedahayna waa hal qof ama hal shay baad sheegaysaa markaad where are leedahayna wax badan baad ka hadlaysaa ama dad badan ama shayaal badan baad ka hadlaysaa marka waxaan leenahay where are the children awe ciyaal where are the children ciyaalkii awe they ayagaan leenahay awal maxaan leenahay he asagaan leenahay hal nin baan ka hadlayn hadda they baan leenahay they waa maxay ayaga they maxaa waay ayaga laba nin iyo wix ka badan ama laba dumar wix ka badan waxay doonaan maada they ayaga waxay yihiin in the classes fasalada ku jiraan where are the children ciyaalkii away they ayaga waxay yihiin in gudaha the classes fasalada what maxaa are they ayaga doing qabanayaan what are they doing maxay soo binayaan what maxaa are they ayagu doing ay qabanayaan they ayaga are taking waxay qaadanayaan lessons cashiro they are taking lessons cashir ay qaadanayaan where xagee is ay tahay Sarah where is Sarah away where is Sarah away halkaas marka iskuulkii baan joognay marka hore hadda iskuulka waan ka yara baxinaa insha Allah taala xafadan aadayna where is Sarah away
she ayada is in waxay ku jirtaa the kitchen jikada. She is in the kitchen. Kitchen-ka ku jira jikada. Hadda xaafadda joognaa. Marka hore iskuulkaan joognay. Maanta waxaan ka bilaabaynaa marka aan joogayna hadda ama aan ka hadlaynaa xaafadda insha Allah taala. Saare aan leenahay war gabadha Saare xagee aaday? Way Saare aaway. She is in waxay ku jirtaa the kitchen jikada ku jirtaa. What is she doing? Maxay suubinaysaa? What is she doing? Maxay suubinaysaa? She ayada is cooking way karinaysaa food cunto. She ayada is cooking way karinaysaa food cunto. Cuntada marka waxay doontaa bacda food cunto cunno. Cooking karin. Where is aaway Sahra's mother? Hooyadii Sahra aaway ama Sahra hooyada aaway. Sahra markaan magaceedi waa kana waxaa raacsan calaamadaas meesha ku taala iyo astaas calaamada apostrophe baa loo yaqaanaa. Apostrophe ayaa la apostrophe calaamada magaceeda s baa la raaciyaa waa lahaansho. Sahra ayaa hooyadan iskala cadaynaysaa. Where is Sahra's mother? Aaway Sahra hooyadeed. Sahra hooyadeed yaa ku cadaynaya calaamadaas apostrophe s ayaa la calaamadii s is wata oo Sahra gadaal looga daray. marka lahaanshay cadaynaysaa in Sahra ay hooyadan leedahay. Where is Sahra's mother? Sahra hooyada aaway. She ayada she maxaa waay waa gabar. ninka meeshaan fiiri hadda he baan soo dhihin ninka gabadha waxaan leenahay she baan leenahay. Where is Sahra's mother? Sahra hooyada aaway. She ayada is sitting way fadhida outside banaanka the kitchen jikada. She is sitting way fadhida outside banaanka the kitchen jikada ay fadhida. What maxaa is she ayada maamadii ah doing ay qabanaysaa. What is she doing? Ay suubinaysaa. She ayada is washing way dhaqaysaa clothes dharkay dhaqaysaa. She is washing way dhaqaysaa clothes dharkay dhaqaysaa. She is washing clothes. Where is aaway Sahra's father? Aabihiis Sahra oo ka apostrophe keeda wiil soo calaamadii aabaha ayada iskale. Where is Sahra's father? Aaway aabihiis Sahra. He asaga is in wuxuu ku jiraa the bedroom qolka jiifka. Bedroom bed waa sariirtii room waa qolkii. He is in the bedroom qolka ayuu ku jiraa. What maxaa is he asaga doing uu qabanaya? He is sleeping wuu jiifaa. Where xagee is the baby? Cunugi aaway. Where is the baby? Aaway cunugi. Baby aaway. It asaga oo cunuga is in wuxuu ku jiraa the cot sariirta. Ilmaha sariirtooda ayaa cot la yiraahdaa. marka halkan waxaan isticmaalnay where is the baby cunugi markii la yiraahdo aaway cunugi. The baby cunugi markii la yiraahdo it ayaan halkan isticmaalnay. Idan maxay u taagan tahay? lianna cunugan babygan you don't know whether it is she or he ma kala garanid inuu gabar yahay inuu wiil yahay ma kala taqaanid. So waxaa loo isticmaalaa babyga mala yaqil ayaa loo isticmaalaa oo kale it baad haysaa marka. Where is the baby? Aaway cunugi. It is wuxuu yahay in gudaha cot sariirta. It asaga wey anigu baa u taagan tahay. Ana aaway cunuga mala yaqil soo qaysa. It's in the cot sariirta ayuu ku jiraa. What is it doing? Muxuu samaynayaa? What maxaa is it asagu doing uu qabanaya? It asaga is playing wuu ku ciyaarayaa with a doll. Bombala ku ciyaara. It's playing with a doll. It's playing wuu ku ciyaarayaa with a doll. Bombala ayuu ku ciyaara. What is it doing? Muxuu samaynayaa? It's playing with a doll. Bombala ayuu ku ciyaarayaa. Marka insha Allah tacaala sida aan wada ognahay cashirka markii muxuu ahaa aad luqadda baranayso haddii aan ku idhaha where is Abdi haddaan ku dhaho already qofka kula hadlayo where is Abdi mar walba kuma dhahay. Marka u fiirso waxaad leedahay where is Abdi? Where is Abdi? He's in the class. What's baraysaa? Where is Abdi? He's in the class. What's he doing? He's writing a lesson. Manaa dad doonaysa in lagu dhaho what is he doing laguma dhahayo. What is he doing ma lagu dhahayo. Qofka u dhahay kula hadlaya what's he doing buu dhahay. لأن في هذه الصومالية مرة طبعا وببسين إسبوعي. What's he doing? مرة كويس بريسا. What is he doing? مرة براتو. وأنا تقول على زاد What's he doing? ما سمعنا. He's writing a lesson. Where's the teacher? هذي يقولي بعض الناس Where's teacher? Where's teacher? Where is the teacher? ما نقول هاي. مرة نقول هذا. Where's teacher? Where's teacher? ويبغى نسوها غوانية. مرة هذي هو في الصوم مرة براتو. Where is the teacher? براتو. وهذا أنا أتكلم أسرعه. Where's teacher at Spartan? Where's the teacher? Where lagu bobsiyaa la rabaa. He is in the staff room ayuu ku jiraa. He is in the staff room. Soma hadhow markaa isku qabanaysa waxaa leedahay he is in the staff room.
he's in the staff room مثلا he is taan oo kale he's in the staff room waa soo gaabana he's in the staff room waayaan luya what's he doing muxuu samaynayaa he's drinking tea shaab buu cabaya marka sidaas oo kale insha Allah tacaala yaa la rabaa inaad hadalka u barato markaad sheegay aad keento where is Sahra's father where is Sahra's father markaad tiraahdo oo aad barato inaad hadhow ku soceliso where is Sahra's father aad tiraahdo where is Sahra's father where is Sahra's father yaad isku qabataa la rabaa he's in the bedroom qolka jiifka ayuu ku jiraa insha Allah tacaala barasho wanaagsan kood waxaa la sarta ciyaalka bedroom waa qolka la seexdo jiifka halka kore staff room ku qorneed oo kale staff room waxa weeyaan isagana waxa weeyaan qolka meesha staffku muxuu ahaa xafiiska ma qolka macallimiinta ay fariistaan oo kale ama shaqaalaha oo kale marka insha Allah tacaala dhageysi wacan thank you waa maasantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh